Kismaayo waxaa lagu xusay sanad guurada 16aad ee aasaaska midowga dhalinta iyo ardada Soomaalida ogaadeen iyo OISU. Midowga dhalinta iyo ardada Soomaalida ogaadeen iyo OISU farciisa magaalada Kismaayo ayaa xusay munaasabadda 16 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ururka OISU. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay xogayaha guud ee golaha dhexe Jooxo Dr. Maxamuud Jaamac iyo xeer ilaaliyaha ururka Sheekh Cabdirasaaq Baakistani kuwaasoo khudbada ay halka ka soo jeediyeen ku bogaadiyay doorka muhiimka ah ee dhalinyarada OISU kuna dhiirigeliyay inay sii xoojiyaan midnimada wacyigelinta bulshada iyo ka qayb qaadashada hawlaha halganka. Mas'uuliyiintii munaasabadda ka hadashay ayaa adkeeyay doorka muhiimka ah ee ay dhalinyaradu ku leeyihiin ilaalinta midnimada, horumarka iyo wacyigelinta bulshada iyo ka qayb qaadashada shaqooyinka ururka. Waxayna sidoo kale ku booriyeen dhalinyarada in ay sii xoojiyaan aqoonta wadajirka iyo u adeegida bulshada. Sidoo kale Jamhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadenya ayaa dhambaal hambalyo u dirtay midowga dhalinta iyo ardada Soomaalida Ogaadenya OISU. Ugu dambeyn OISU Kismaayo waxay hambalyo u dirayaan dhammaan xubnaha iyo taageerayaasha ururka. Munaasabadda 16 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ururka dhalinyarada iyo ardada Soomaalida Ogaadenya OISU oo ku beegneed 27 bishii 6 2010 iyagoo u rajeynaya guul iyo horumar iyo midnimo iyo xornimo taama ummadda reer Ogaadenya.